madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka xil hore kormeeray dekedda weyn ee magaalada Berbera waxaanu xariga ka jaray dhisme dabaq ah oo ay yeelan doonto wakaaladda dekedaha Soomaaliland ismahan ayaa waxa faahfaahin ka siiyay madaxweyne Biixi marayaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo muddada uu xilka hayay muujiyay horumarkii ugu ballaarnaa dhinaca dekedda Berbera dhismihii ay yeelanaysa xarunta dekedaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa xafiis weyn wuxuu ka kooban yahay 24 xafiis iyo laba hoolo waaweyn iyo goob ay customer ku fadhiistaan waynu dhexmari doonaa insha Allah waxay ka mid yihiin waxqabadkii muddadii aad joogtay aanu dhameystirnay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanay mudane madaxweyne awaamirtii iyo siyaasadaadii baanu fulinaynaa madaxweyne Biixi iyo waftigiisu waxa ay fuuleen taagii cusub ah ee maraakiibta soo xidha oo uu dhawaanta soo iibiyay marayaha dekedaha Soomaaliland kaas oo muddo 28 sano noqonaya taagii ugu horeeyay ee Soomaaliland soo iibsato oo soo xidha maraakiibta waaweyn ee ku soo xidha dekedda weyn ee magaalada Berbera dabcan madaxweyne Biixi wuxuu booqday goobta ay ka bilaamayso fidida dekedda Berbera ee laga dhisayo 400 mitir ee ugu horeeya kaas oo dhisayso shirkadda DP World waxaana mar labaad halkaasi warbixin ka siiyay marayaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi waxa ay u dhawaatay oil beebka jadka sida daraadeed oil jadka waa la rarayaa 1 kiiloomitir baa loo rarayaa insha Allah waayo waa halis weey marka dhismuhu halkan uu ka bilaamaya 400 xagaas ay soconayaan insha Allah waxaan jecelnahay goobtii inay aragtood soo booqato aad baan ugu faraxsanahay dhawaanna way bilaamayaan qoladii company-gana mobilization-kii bay soo sameynayaan December 16keeda ayuu soo gaaray qalabkoodii horaantiisa muddada 24 bilood dhexdoodana inay ku dhameeyaan ayaa heshiiskii lagu saxay haddii ay dib u dhac sameeyaan waxa ku dhacaya penalty aad weyn ganaax baa ku dhacaya xagga dawladda Soomaaliland kaga dhacaya xagga DP World kaga dhacaya insha Allah bidnillah ta'ala waxaan jecelnahay inaad ku ducayso intaasi kadibna madaxweyne Biixi ayaa hadalka qaatay waxaanu ku adkeeyay mas'uuliyiinta shirkadda DP World iyo marayaha dekedaha Soomaaliland qodobo muhiim ah oo khuseeya bilowga dekedda iyo waxa laga doonayo qoladii dekedda maamusho waxa laga rabaa halka wixii shaqay qadaraas ka baxayaan horta cadaalad ku baxaan sax sababta halka ka soo noqon qoladana soo walaw ka taroora meesha sharciga lagu heshiyo waa in ku socda laba wax Soomaaliland ka rayso ama qalab ma aqoon waa in cid kale keenin qoladana saas ku shaqeynaysa taasi waa in laga qaldaro saddex waxa jira meel kasta dadka indigenous markaa jooga waxay leeyihiin waxa la yiraahdo wartay indigenous rights qiyaasta waa la sahlayaa wixii localka loo reebayo waa caadi meeshii biro laga helo meeshii shaqo cusub laga helo birita meel baa dheema laga heli doonaa qaar baa laga heli doonaa waa xeerka lagu dhaqmaa kolba deegaanka wixii loo reebayo deegaankana waa in saa loo fahamsiyaa oo dadaan dawladda aqoon waxay doonaan ana ka hadal qof wax doonaa oo ka hadal labada qodob ku dadaalisa iyo waqti waa ilaalisa